السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قيمة قياحة مدويني سلامي ولكن مسلح عبد يوتيوب كان داوني سنة ومسلح اوفيشال مر kale isku soo noqod warag war degdega goob inta badan ay tagaan tiktoogleyda magaalada muqdisho caanka ka ah ayuu qarax weyn ka dhacay muqdisho ku taala degmada kaxda meedadka iyo dhaawac waa la kala guri waayay telegram sida ka soo arki kartid dadka caanka ah ee ku jira ma sheegi karno hebel iyo hebel ma dhihi karno dhibaato weyn ah meesha ka dhacday markii miinada dhacday waxaa la sheegay meesha in dadku ay tiktok ku duubanayeen aadna ay u shidneed runtii waa arin khatarteeda leh ilaahay ayaan ka baryaynaa in dadka saaxiibada ah iyo kuwii aan aqooninba ee Soomaali ahba uu ku shartiro laakiin haddii qof saaxiibka haddaba haddii aad garanaysid qof saaxiibka ah oo tiktok aad ugu waalan aagaasana tahay ka wardoon xaaladiisa waxaa laga yaabaa inuu ka mid yahay dadkan dhaawacay dhimashada uu soo gaaray ilaahay se uma kaso wallaahi waa arin aad khatarteeda u leh waxaan rajaynayaa in dadka bini aadamka ee walaalaheena ay Soomaali عسكري الله يتو والله سيدي دم كيلو ولا فايو بسم الله دم والله ماشي على كم تقال الله ورم قلت كان تعاوني والله لا اله الا الله كان ورم قلت تعاون متكلا دايت ايش تقال الله متقال muuqaal si toos ah u muujinaya meesha uu ka dhacay qaraxa oo ah degmada kaxda dalcad tiktoogleyda caanka ka ah magaalada caasimadda ee muqdisho ee magacooda uu ilaahay u qarxiyay ay inta tagaan inta badan ay ku duuban jireen muuqaalada miino ayaa halkaasi ka dhacday waxaa la sheegay laba qarax inuu dhacay laakiin kan daran waa kii horeeyay si dadku ay sheegayaan waxa dhaawac culus uu ka gaaray oo xitaa magaalada banaankeeda laga dareemaya oo ambulance uu aad isku ordayaan ilaa iyo 12 qofood dadka dhaawaca ah gurmadka ugu horeeyay ambulance ka hor ayay heleen waxaana u sameeyay dad shacaba iyo bajaajley isxilqaantay ilaahay jannada ha geeyo kuwii gurmadkaas sameeyayba waayo xilli loo baahan yahay kama aysan ordin way u ordeen waana soo qaadeen waana badbaadiyeen dadka qaar ayaa ilaa hadda ehladooda la helin sida aawadeed fariinta haddii dadka qaar gaarto waxaa dhici karta in halka isbitaalada ay baadi goob u tagaan nala gudbi goobtan markii qarax uu ka dhacay waxaa la sheegay inay marayeen saraakiil laamaha amniga ka tirsan halkan oo ah degmada kaxda sida ay xogtu hadda tibaaxayso waxaa la xaqiijiyay marka in waxyeelada dhaawaca tiradoodu hadda ay tahay ilaa iyo 6 qofood dhimashada si sax ah looma xaqiijinin waayo dadka qaar oo gurmadkii isbitaalada ay soo direen gaadiidkooda gurmadka ka hor la qaaday ayaa jira oo wali aan tiradooda saxda ahayd aysan soo laabanin ama war laga helin sida aawada xiriiraadka aan la sameeyay isbitaalada waxa ay sheegeen in wali aysan ku fududaan karin ka hadalka tiro rasmi ah inay nasiyaan sida aawadeed waa u caqdigeena waa sugeena cadowga ummadda Soomaaliyeed ee argagixisada ah waxay bartilmaameeysadeen dad shacab ah oo masaakiin oo aan waxba geysanin waxay tan muujinayaan cadowtooyada lixaad kale ay u qabaan dadka shacabka ah ee birmigeydada ah muxuu biyay wiilka iyo gabadha yar ee madaxa iyo lugta kala go'ay maanta maxayse galabsadeen nimankan dhalinyarada ah ee dalkooda iimaansanayay ee quruxdiisa iyo wanaagiisa uun duubanayay balse aanan ku fooganeyn xitaa wax la isdhihi karo ayaga ay uga hor imaanayeen waxay tan cadeynaysaa marka in shacab iyo ciidanba baashu aysan u kala saarneen raggaas oo hal meel uu yahay oo ah dhibaateynta dadka Soomaaliyeed ama ha noqdo wadaad ama nin tiktok la ah ama askari sida aawadeed dadka shacabka waxa mas'uuliyad ka saaran tahay laamaha amniga inay la shaqeeyaan laamaha amniguna waxa mas'uuliyad ka saaran dadka shacabka inay dhowraan laamaha amniga hadda dadaalka ay sameeyeen jidka ayaa la xiray sida u jeediyay muuqaaladan waxaana dhanka kale la adkeeyay ammaanka taas oo wali ay ahayd arin dabcan ku saabsan in meesha khatar kale ay jiri karto waana tan keentay in qaraxi labaad laga digay oo wax waxyeelaa uusan geysanin maadaama kii hore lagu baraarugay markii uu dhacay kadib in meesha dad shacab ah ay wax ku noqdeen kadibna dadkii shacabka laga celiyay si mid kale oo markaa laga shaki qabay uusan u dhicin sidii ay ayaga u maleysteen ayuuna noqday mid kale ayaa dhacay ilaahay ayaana kasay in dad shacab aysan waxba ku noqonin waxaan rajaynaynaa marka hadduu ilaahay karaam noqdo in laga guuleysto cadowga raba dadka masaakiinta inay dhibaateeyaan salaam calaykum marxuumka goobtaasi lagu dilay waxaa la oran jiray allah u naxariistay marxuum fiin cabdi maxamed wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah dalkan u soo baxay ciidanka u soo qortay inuu u horo naftiisa bulshada Soomaaliyeed ilaalinta amnigooda balse ayadoo isgoyska xiran yahay ayaa eedeysanahan oo goobta aan ka tirsaneen wax shaqo aan ku lahayn darawal ahaa dhar carabi ah wato wuxuu u yimid eedeysanaha labaad oo meeshaas waardiye ka ahaa wadadan ay u xirneed wuxuu la hadlay inuu sii daayo gaari barobokis ah inuu goobtaas ka sii daayo eedeysanaha labaad uu ka diiday bacdama amniga meeshaas uu ku qoran yahay shaqadiisana ay ahayd balse sidee liiga diidi karaa ayuu wuxuu u doontay qori AK47 ah oo aan maanta maxkamadda hor keenay
qoriga ayuu la soo degay wuxuu yimid goobtii askarta u xirneed askartii ayuu rasaas ku bilaabay halkaas waxaa ka cad in uu sameeyey duruufaha dembiga cuslay markaan u fiirino is-hortaag shaqo qalqalgelin amni iyo hujuumid waardiye waa saddex qodob oo waaweyn oo mid walba culayskiisa uu leeyahay is-hortaag shaqo shaqadii qaranka ee goobtaasi taagneed goobtaasi waa goob xiran isgoys saxmadiisa ay badan tahay ay ahayd qalqalgelin amni ayuu ka sameeyey sababtoo rasaasoo ku furay askar meel taagneed oo rasaas ku furay askartaas markii laga gadaalisiiya xataa shacab Soomaaliyeed ay taagnaa bajaaje tiro badan meesha marayaan qalqalgelin amni uu sameeyey hujuumid waardiye askartii meesha taagneed ee ilaalada ahayd ee baabuurkaas qaraxa looga shakiyey iyo isgoyska xataa amnigiisa ilaalinaysay ayuu hujuum ku sameeyey intaas oo dhan waxa fuuqsanay laakiin dil bareera iyo dhaawac oo geystay number 1 marka dambiyadiisa u kala waaweyn dil iyo dhaawac aaweyn kuwaas ku soo eedeynay xafiis xeeraalin ahaan fal dambiyeedka eedeysanahan uu geystay waa mid kaliira marqaatiyaal cadcad ayaan maxkamadda hor keenay sidoo kalena muuqaal kaamirada CCTV-ga ee duubtan maxkamadda hor keenay marxuumka goobtaasi lagu dilay waxa la oran jiray Allah u naxariistay marxuum Fiin Cabdi Maxamed wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah dalkan u soo baxay ciidanka u soo qortay inuu u horo naftiisa bulshada Soomaaliyeed ilaalinta amnigooda 3 saac oo habeenimo wuxuu taagnaa isgoyskaas Siinay oo dhaxanta ka dhacaysa ogtahay mudan gudoomiye wuxuu u taagnaa in uu amniga sugo amniga uu sugayay oo u taagnaa oo gaari qaraxa looga shakiyay ayuu dadweynaha ka celinayay si ay naftooda uga bixin balse waxa dhabarka ka toogtay eedeysanaha koowaad oo lagu magacaabo Yaasir Cabdullaahi Xirsi Baakay sababta uu u dilay lama yaqaan cadownimo u dilay marxuumka Allah u naxariistay shaqo qaran oo ku jiray waajibaad qaran oo gudanay bulshadiisa Soomaaliyeed ayuu u khidmeynay balse waxa dhabarka ka toogtay eedeysanaha koowaad Baakay mudane gudoomiye Baakay wuxuu sidoo kale dhaawacay oo isla goobtaas ku dhaawacay laba xidigle Cali Cabdullaahi Cumar Cali Dhoodaan oo taliye ka ahaa checkpointiga sababta uu dilay asaga xataa ma yaqaan sababta uu dhaawacay sarkaalka asaga xataa ma yaqaan oo eedaro u dhaawacay sidee amarkayga loo diidi karaa gaari aan dhahay hal soo daayo sidee loo celin karaa ayuu u dhaawacay sarkaalkaas marxuumkan uu dilay waa isla weyni meesha ugu darneed xabadaas la rabay in cadawga al-shabaab uu kaga hortago argixisada ah ayuu wuxuu ku dilay dhabarka uga toogtay saaxiibadiis ku safka ahaa mudane gudoomiye halkaas eedeysanaha wuxuu ku sameeyey is-hortaag shaqada markii asaga xabada uu bilaabay kaamirada waa laga hor arkay oo maxkamaddu waa tusay shaqadii waa joogsatay gurmad ayaa la bilaabay marxuumka in la qaado asaga laftigiisa dhaawiciisa in la cararo wali ciidanka asxaana u sameeyeen dhaawiciisa ay la carareen mudane gudoomiye maxkamaddu waxa nooga hor cadaatay eedeysanaha labaad oo u xirnaa dhaawaca eedeysanaha koowaad maxkamadda horteed waxa ka cadaatay in markii aan muuqaalka fiirsanay sidoo kalena marqaatiyaasha aan dhageysanay waxa ka hor cadaatay in dambigan uusan waxba ka geysan dilna ma geysan dhaawacna muusa geysan balse eedeysanaha koowaad oo dil iyo dhaawac geystay ayuu xabad ku dhuftay xabadan ugama dhufan wadnaha madaxa ugama dhufan ee gacanta uga dhuftay waxa maxkamadda ka hor cadaatay in fal dambiyeedka ugu daran ee dilka iyo dhaawaca ah uusan asaga geysan mas'uul uu ka yahay Yaasir markii uu joogay baarista iyo maxafiiska xeerlaanta markii la keenay wuxuu diidanaa inuu qirto fal dambiyeedkan dilka bareerka uu geystay wuxuu ka warwareegtay oo yiri xabado badan meesha ka dhacay xabadii ku dhacday marxuumkana ma aqaan balse marqaatiyaasha aan keenay iyo muuqaalka CCTV-da si cad ay u cadeynaysaa in eedeysanaha Yaasir uu dilkaasi bareer u geystay sidaa darteed mudane gudoomiye bacdama eedeysanahan uu sameeyay fal dambiyeedi aad u culus oo uu qalqal galiyay amnigii isgoyska Siinay oo zaxmadiisa aan ognahay ee uu hujuumay askartii waardiyaha ka ahayd ama ilaalada ka ahayd checkpointigaas ee amniga sugaysay uu hor istaagay shaqadii qaranka ee goobtaas ka socotay isla markaana uu geystay dil bareera iyo dhaawac waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in eedeysanaha ay ku xukunto dil toogasho ahna ciqaabta fal dambiyeedidii uu geystay sidoo kale bacdama Cali Xasan Cali ay maxkamadda horteeda uga cadaan weysay fal dambiyeed uu isaga geystay waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa
in ay go'aan ka gaarto kiiskiisa maxkamadda sharafta leh